SBS Radio. طبعا waxaan la soconaa in idaacadda KNN ama kulmiye radio xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho in la sheegay inuu baahiyay warbixin sheegaysa in madaxweynaha uu ogolaaday in uu bedelo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre muddo saacado kadibna waxaanu ka war helnay oo aynu aragnay wakaaladda wararka Sona inay soo saartay ruqso adiga lagaaga ruqsaynayo shaqadaadii maareeynimo ee xarunta murtida iyo madadaalada ee National Theatre bal arintaas inoo faahfaahay abwaan walaalo arintaas waa jirtaa anigu waxaan ku suganahay dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Ankara jooga warkaas idaacadda inuu ka baxay ayaa telefoon la igu sheegay waliba mas'uuliyiin ka careysan ayaa soo wacay oo ii sheegay anigana waxaan u sheegay idaacadda maamul kama yihi oo markii maareeyaha la magacaabay ayaan maamulkeeda wareejiyay agaasimo kale ayay leedahay haddana dalkii ma joogo waxaan ku suganahay Turkiga marka haddii warku qalad yahay sharciga saxaafadu leedahay ama dawladdu ay leedahay sharciga loo maro haddii uu sax yahay haddii alla ku rooyay lagu qanco marka kulleey jawaabtii waxay noqotay anigoo dalka Turkiga ku sugan oon idaacadda joogin oon warka la baahiyo warka haynin oo aan la kulahayn jawaabtii waxay noqotay in gooraxilka laga qaado marka anna waa ku qancay oo waan soo dhaweeyo waa ka aqbala xilka qaadista waaya marka xilka qaadistaada waan u soo noqon doonaa warkan markii aad maqashay siyaasiyiintuna ay ku soo waceen in idaacadaada laga baahiyay adigu ma u kuurgashay ma ogaatay warka inuu sax yahay inuu qalad yahay ma la xiriirtay agaasimihii idaacadda waan la xiriiray agaasimaha idaacadda iyo tafaftiraha iyo wariyihii warkaas sameeyay intaba waan la xiriiray waxay ii sheegeen oo macal warkan ay ku sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya inay ka heleen xogta warkana waa ay ku sheegeen marka wariyahana haddii alla ku roon yahay isha oo warka ka helo waxaa la weydiin karaa markii maxkamad la geeyo marka mas'uuliyiintii soo wacana waa u sheegay waxaan yiri xaq aad ugu leedihiin ilwareedka haddii wariyaha maxkamad la geeyo inuu ilwareedkiisa sheego laakiin ka hor inuu sheego xaq looguma leh marka ama shirjir ay qabto beeniya warka oo idaacadda laga daayo adinkoo beeninayo raadiyo kulmiye warka uu daayo waa been dhahaya way idin furan tahay inaad maxkamadda waaran uga soo goysiin waa idin furan tahay hase yeeshee anigu idaacadda maamulana kama yihi mana joogo oo dalkii kuma sugni maxaad isleedahay marka in arintaas markii ay dhacday oo sidan hadda aad sheegaysan aad ula hadashay mas'uuliyiinta in markiiba xilka laga qaado maxaa marka isku xiray labadan arin waa midaan garaweysanahay sababtoo ah anigu raadiyo kulmiyada intaan maareeyaha la magacaabinaya agaasimo ka ahay maareeyaha markii la magacaabana haddii alla ku roo agaasimo kalan xilkeedii ku wareejiyay maamulo kama yihi waa raadiyo madax bannaan oo magaalada ku yaala marka haddii alla ku roon yahay war uu sheegay in la yiraahdo haddii alla ku roon yahay goora bari agaasimo ka ahaa jiray xilka looga qaado waxaan garawaayo laakiin haddana waa ku qanacsanahay in la iga qaado sababtoo ah marar badan ayaan la kulmay dhibaatooyin badan oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahaba ay ugu qabsadeen war idaacadda ka baxay ama haddii alla ku roon yahay barnaamijyo sheekooyin oo idaacaddu ay samayso waan u sheegay waxaan yiri ama sheekada kalamaan oo kale marar badan ugu qabsadeen abwaanado dawladii ka tirsan oo maareeyaha idaacadda kulmiye warkaan u sheegaysa war haddii idaacadda kulmiye haddii dambi gasho ayada kula xisaabtama laakiin maareeyuhu ma ahayn haddii alla ku roon yahay idaacadda hala aamusiyo haddii idaacadda lagu aamusinayo waa wax gaara marka haddii maareeyuhu ay tahay shuruudiisu haddii raadiyo kulmiye la aamusiyo iyo caddeeya haddii kale raadiyo kulmiye hadduu dambi inta galo kula xisaabtama asaga laakiin maareeyaha iyo kulmiye waxa isku xira garan maayo على كل حال تيوم بس وبعد آخر كين. واي وقدمين أبوان طبعا واحد كم قنتها دالك سيدات شكتي تركيا آيات جوكتا أنكرا مركز حل كقادستان صونا لقو صوت دابع كهر أديك ما لقو لسعودية مسوي حد كأركتي برها بالشدة. ليلة مسعودين أو وركا إذا عدا waxa uu ka baxay hadii alla ku roon 7 saac oo maalmeed xilka qaadisuna waxay dhacday 8 saac oo maalmeed hal saac u dhaxaysay marka wasiirka warfaafinta waa wada hadalnay oo waraadan qoray laakiin waxa uu sheegay in lagu amray inuu qoro waraaqda
anna waxaan idhi waa ku qanacsanahay haddii lagugu amray fuli asaguna waa uu fuliyey anna waa aqbalayo waa soo dhoweeyo waa ku qanacsanahay saacadda aan kula hadlayo xilku waa meerto qofba maraa loo dhiibi karaa in layga qaadana waa ku qanacsanahay culays iyo dhib waxaan ahayna kuma qabinoo waxaad og tahay tiyaatarkii qaranka oo qaawan oo burbursan ayaan muddo sanada ku mashquulsanaay sidii loo dhisi lahay maantana dhismihiisu wuxuu marayaa marka hataa waxaan diyaar u ahay kuraasaasna inaan ku xiro ma ihi anigu nin xil oo ooman marka in layga qaadana waa ku qanacsanahay weligay waa shaqaysan jiray waxaan culaysayna kuma qabin xilku aad uu ugu culus yahay aniga dhibowba igu ahay madaxdii shalay ii dhiibtay maantana iga qaada waa u mahad celinaya waana ku qanacsanahay xilka layga qaado walaalkay aad baad u mahadsantahay abwaan guure adiga mudan baaf